tababarkan oo socday muddo 10 maalmood ah loona qabanay iskaashatooyinka beeraha beeraleyda reer Jowhar shaqaalaha wasaaradda beeraha Hirshabelle iyo kuwa kale oo ka socday wasaaradda beeraha dowladda federaalka Soomaaliya ayaa lagu soo xiray magaalada Jowhar. tababarkan oo ku saabsanaa sidii kor loogu qaadi lahaa wax soo saarka beeraha gobolka Shabeellaha Dhexe iyo guud ahaan Hirshabelle iyadoo kor loo qaadayo tirada iyo tayeenta wax soo saarka beeraha. mashruuca tababarkan oo ah Outreach 2 waxaa fulinaya hay'adda FAO oo kaashanaysa wasaaradaha beeraha ee xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo tan dowlad goboleedka Hirshabelle waxaana mashruuca maalgeliyay midowga Yurub. dadka ka faa'iideystay tababarka ugu horeyn goobta ka hadlay ayaa waxay sheegeen wax badan ay ka faa'iideen tababarka intii uu socday ayna ku dhaqmi doonaan gaarsiin doonaan iskaashatooyinka intooda kale si loo helo wax soo saar tayeysan. meeshan waa aad iyo aad nogala saaciday waxaana la baray practicalki sunta aanu isticmaali lahayn annagoo marka hore sunta beerto amba ka badin jirnay amba ku yaray jirnay haddana weelka sunta aan ka dhamayno iska isticmaali jirnay oo biyaha ku cabi jirnay oo maaragtay caanaha ku shuba jirnay oo waxyaabo badan taas oo nogula tababaray in ay naftayna waxyeelayso iskaashiga midnimadu horumarka sidii aan ku gaari lahayna waa in aan garbaha isqabsano. waxyaalaha aan ka faa'iidnay 10 maalin uu socday waxa ka mid ahaa sidii loogu badbaadi lahaa sumanka tayadooda ay yar tahay sidoo kale inta caqabadaha ay leeyihiin waxay dadka bini'aadanka ay u deysan karaan sidoo kale inta waxaan ku baranaynay sidii loo soo saari lahaa wax soo saar tayo leh oo caafimaad qaba oo deegaanka iyo dadkaba ku filan. dhinaca kale agaasimaha guud ee wasaaradda beeraha iyo waraabka Hirshabelle Cabdullaahi Cali Cabdi ayaa hay'adda FAO iyo midowga Yurub kaga mahadceliyay qabsoomida tababarkan oo faa'iido badan u leh wax soo saarka beeraha. mashruucan Outreach waxaa maalgelinayo midowga Yurub waxaana fulinayso hay'adda FAO. runtii waana mashruuc wax badan aan ka faa'iideysanay dhinacyada tababarada oo hadda ugu horeeyay tababarkan qiimaha badan leh oo 10 maalmood soconayay ka soo qayb galeen shaqaalaha wasaaradda iyo iskaashatooyinka qaar kamid ah oo lagu baranayay habbeerashada casriga ama good agricultural practice-ka. runtii waanu mahadcelinaynaa tiimka ka socdo FAO ka socdo 15 bari ka badan meeshan joogay oo Hirshabelle inay maaragtay tababaraan iskaashatooyinkii iyo shaqaalihii wasaaradda halkan u yimid waanu mahadcelinaynaa. gudoomiyaha degmada Jowhar Cismaan Maxamed Mukhtaar Bari iyo kusimaha gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Dhexe Maxamed Cabdi Sheekh Xandow ayaa waxay sheegeen inay rajeynayaan dadka tababarka loo qabtay inay ka faa'iideysan doonaan sidoo kalena waxay kula dardaarmeen dadka tababarka loo qabtay in ay dhaqan geliyaan waxyaabaha ay barteen. waxaan magaciisii aan ogahay ama ogaa karnaa ama qof kasta oo qaan gaar ah ogaa karaa haddii webiga lagu xakameeyo biyaha in aan qoodin karno Soomaaliya oo dhan iyo wadamada dariskana la ah inaan qoodi karno Jowhar hadaan nahay. waxaan leeyahay iskaashano hadaan nahay dawladda dhexe hadaan nahay dawladda Hirshabelle hadaan nahay gobol iyo degmo shacab iyo dhammaan iskaashatooyin iyo hay'ado kasta oo ka jiro magaaladan. waxaan maanta aad ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galno gabagabadii seminaarkii socday muddada 10 maalmood ee loo qabtay iskaashatooyinka iyo tiimkii ka tirsanaa wasaaradda beeraha iyo waraabka dowlad goboleedka Hirshabelle. xaqiiqdii waan dareemi karnaa in la kala faa'iido maadaama 10 maalmood loo fadhiyay si wax dad qof waliba qof kale wax uu kororsan lahaa. waxaan aad ugu mahadcelinayaa dadkii ka soo qaban qaabiyay iyo dadkii bixinayay seminaarkaas qiimaha badan leh horumarka badan laga sameeyay. wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha iyo waraabka Hirshabelle Maxamed Bashiir Qaasim Daqare ayaa sheegay in la iska kaashado ka hortagga fatahaadaha si aysan u saameynin tacabka beeraha isagoona u mahadceliyay maalgeliyayaasha midowga Yurub ee hay'adda FAO oo mashruuca fulinaysay. 10 maalmood wixii la baranayo waxaan isleeyahay waa aad u wanaagsan wixii aad barateen inaad iskaashatooyinkii aad gaarsiisaan shacabka kale la gaarsiiyaan idin faraynaa aadaan u mahadsantiin mar labaad iyo mar saddexaadna waxaan u mahadcelinaa ciddii soo abaabushay fanka ku bixisay macallimiinta ku bixisay hay'adda FAO waxaan leeyahay aad u mahadsantiin shirkana waa noo xiran yahay. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Ibrahim Ali Nur TV Universal Jowhar.